Assalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan nila wadaago filim Chinese ah kaasoo lagu magacaabo The Revenge of Balant. Daawasho wacan, iskana taxadir. bilowga filimka waxaa ku bilaabmaya jaamacadda la yiraahdo Kinshan. Professor lagu magacaabo Huang Yunshan iyo caawiyihiisa Shanwan ayaa waxay barayaan galaas maadada lagu magacaabo genetic engineering. Ardayda ayaa ka qaadanaya sawirro samuurada si ay uga akhristaan hadhow. Mid ka mid ah ardayda oo lagu magacaabo Luoke ayaa sawir ka qaaday Shangwen. taas beddelkeeda waxay jacayl u qabtay tan iyo markii uu ahaa freshman, laakiin weligeed geesinimo uma yeelan inay qirato. Luoke saaxiibadeeda ugu wanaagsan oo lagu magacaabo Lily ayaa tustay sawirka mid arday cusub oo subaxaas laga helay kulliyadda. Kadib waxay meesha ka saareen sheekadii oo waxay iska sii wateen fasalkoodii. Waxaynu aragnaa meel kale. Booliisku waxay sawir ka qaadayaan arday cusub oo u dhintay si qarsoodi ah, kaasoo jirkiisu noqday cagaar oo aad moodo in la maandooriyay. Markii qof kasta ka baxay fasalka, Luoke ayaa u soo dhaqaaqday dhankii Shangwen iyada oo gacmaha ku wadata geed, waxayna u qiratay jacaylkay u qabtay isaga. Si kastaba ha ahaatee wuu ka diiday sababtoo ah waa ardayadiisii. Luoke ayaa u muujisay saaxiibta Lily sida ay uga xun tahay waxa ku dhacay, waxayna u sheegtay in weligeed la diidin. Lily ayaa u soo jeedisay in ay ogolaato oo ay kula ciyaarto heesta ka socota raadiyaha si ay u ilowsiiso wixii ku dhacay. Shangwen ayaa arkay iyaga oo ciyaaraya, iskuna dhoola cadaynaya. Intaa kadib, Luoke wiil ay isu galaas yihiin oo jacayl u qabay ayaa ula soo dhawaaday ubax. Lily ayaa ka dhex baxda labadooda, waxayna iska tagtaa qolkeeda jiifka iyada oo la yaaban wejigeeda waxa ka muuqda inan cagaar ah oo u eg geed biqil ah. Si degdeg ah ayay ugu dabooshay make-up. Dhanka kale, Luoke ayaa ka diiday ninkii jacaylkii uu u soo bandhigtay, kadibna iskaga tagtay. Waxaynu aragnaa Shangwan iyo Huang Yunshan oo ku sugan xafiiska professorka. Professorku wuxuu siinayaa cabitaan ka dhigaya inuu miyir doorsoomo. Dabadeed wuxuu la soo baxay geed qariib ah oo xididdo dhalaalaya leh. Waxa uu ku daraa dareere laga soo saaray jirka Shangwen. Waxa uu isku dayayaa inuu arko haddii jirka Shangwen uu ka habboon yahay in geedku ka dhex bixi karo, laakiin wax natiijaha kamuusan gaadhin. Professorku waxa uu dhirta iyo Shangwen kaga tagaa xafiiskiisa, wuuna iska socdaa. Dhinaca kale, Luoke ayaa ku soo laabatay qolkeedii jiifka, waxayna ogaatay in Lily ay u dhaqmayso si la yaab leh. Waxayna weydiisay wixii ku dhacay. Lily ma tusto wejigeeda oo keliya waxay u sheegtaa inay u baahan tahay nasasho yar. Luoke ma dhibin oo waxay bilowday in ay sawirto Shangwen. Balakoonkiisa ayaa ka muuqda daaqadooda, taas oo ka caawinaysa Luoke in ay si fiican u sawirto. Meel kale oo hostelka ka mid ah, waxaynu aragnaa gabadh ku qubaysanaysa shower oo korkeeda ka imanaysa dhir gurguuranaysa oo si tartiib ah u daboolaysa showerka. Marka ay aragto, biyuhu waxa ay isku beddeleen cagaar iyada oo isla markiiba qaylisay. Kadib markii Luoke ay dhammaysay sawirkii, waxa ay go'aansatay in ay siiso Shangwen, laakiin markii ay qaraacday albaabkii, cidna umaysan jawaabin. Isla markaa, gabadh lagu magacaabo Shu Malu ayaa u timiday oo furaha ka soo saartay sariirta hoosteeda. Waxa ay ka furtay albaabada oo ay isla markaa ka codsatay in ay ku sugto gudaha. Isla markaana, Shangwen ayaa ka soo toosay qolka professorka. Waxa uu ku wareeray sababta uu u seexday qolka, laakiin wax badan kamuu fikirin. Geedkii ayuu qaatay, waxaana uu ku noqday qolkiisii. Intii ay sugayeen, Shu Malu ayaa u sheegtay inay tahay saaxiibtii soo hore Shangwen ee ay jaamacadda wada galeen. Luoke waxaa ku dhacay hinaaso aad u xun, laakiin waxba maysan odhan. Shu Malu oo rabta in ay baxdo ayaa Luoke waxa ay weydiisay
in ay u sheegtay Shan Wen in ay xaggan joogto. Kadib markii ay tagtay, Luan Ken waxa ay baaratay alaabtii Shan Wen oo ay isku dayday in ay kombiyuutarkiisa u isticmaasho baaswordho kala duwan. Wax yar kadib wuu imiday, wuuna naxay markuu arkay iyada oo qolkiisa ku jirta. Luan Ken ayaa u sheegtay sida ay gudaha ku soo gashay, kadibna weydiisay sababta ay dhalashadeedu u tahay baaswordka kombiyuutarkiisa. Balakoonkiisa ayuu geeyey, isaga oo tusaya geedihii ay siin jirtay sannadaha oo dhan. Shan Wen ayaa markaas u yeedhay Shu Malu, waxayna sharaxday sida uu u jeclaa isagu, laakiin waxa ay heshay dalab ah in ay ka shaqayso shirkad ajnabi ah, wayna ka tagtay. Luan Ken ayaa waxay isku dayday in ay qariso masiirkeedii, laakiin way ku guuldaraysatay. Way ka carartay, balse wuu ka soo daba cararay. Waxa uuna u sheegay in uu isba jecel yahay, laakiin maadaama ay yihiin macallin iyo ardaygiisii, uusan habboonayn xidhiidhku. Luan Ken ayaa soo jeedisay in ay is-sukaansadaan kadib marka ay qalin jabiso, isna wuu ka oggolaaday. Waxa uu siinayaa geedkii uu ka helay xafiiska brofeesarka oo calaamad ballan ah. Kadib markii ay ku soo laabatay qolkeeda, Luan Ken oo waraabinaysa geedka ayaa waxa gooyay farteeda caleemaha. Waxa ay si fudud isugu duubtay faashad inta aysan u qaadin saaxiibteed Lily. Markii ay saaxiibteed u jawaabi weyday, waxa ay u qaadatay in ay goor hore seexatay, iyaduna way seexatay. Xididada geedku waxa ay bilaabeen in ay dhalaalaan gudcurka awgeed. Laamihii ayaa soo gurguurtay ilaa dhulka, waxa ayna la wareegeen sariirtii Luan Ken iyaga oo ku ciijinaya. Luan Ken way toostay si ay u ogaato in ay ahayd riyo xun. Dabadeed waxay dareentay dareere cagaaran oo ka daadanaya sariirta Lily. Si taxadir leh ayay daahii uga qaaday, waxaana ay ogaatay jidhkii dhintay ee Lily. Dhabarkeeduna waxa uu bilaabay in ay ka soo baxdo dhir. Araggaasina waxa uu ka dhigay Luan Ken in ay la qaylido cabsi darteed. Warkii ayaa faafay, waxaana loo yeedhay booliiska inay baadhaan. Shan Wen ayaa maqlay dhacdada oo u orday si uu u ogaado in ay Luan Ken fiican tahay. Sarkaal booliis ah ayaa tusay Shan Wen geed laga helay jidhka Lily, wuxuuna weydiiyey in uu garanayo. Shan Wen wuu wareeray, sababtoo ah geedku waxa uu u eeg yahay nooc ka mid ah xididada oo uusan weligiis arag noloshiisa. Intii ay sugaysay in uu boolisku hawsha dhameeyo, Luan Ken waxa ay aragtay Shu Malu oo ku dhex jirta dad badan. Shan Wen ayaa u kaxaynaya Luan Ken hoteelka maadaama oo ay ilaa saaka wax cunin. Waxaa lagu dhawaaqayaa in xarumaha jaamacadda la gali doono lockdown maadaama oo ardayda qaar laga helay fayras. Dhammaan ardayda iyo macallimiinta waxa laga codsanayaa in aanay jaamacadda ka bixin fasax la'aan. Iyaga oo fadhiya kafeteriyaha ayaa waxa ay maqleen war ku saabsan Professor Hu oo lagu eedeynayo in uu halis geliyay caafimaadka bulshada kadib markii uu ardaydiisa baray fayraska dilaaga ah. Luan Ken waxa ay xasuusataa in Lily ay lahayd wiil ay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo H, kaasoo ka caawiyay in ay bixiso kharashka waxbarashada. Waxaana ay aaminsan tahay in uu H wax ka qaban lahaa dhimashadeeda. Dabadeed waxa ay aadaysaa tuuska, waxaana farteeda ay ka saaraysaa faashadda, taas oo muujinaysa in dhaawacii farta soo gaaray uu bilaabay in geed ka soo baxo. Way argagaxday, waxaana ay isku dayday in ay soo jiido. Nin xidhan BBA iyo maaskara weji ayaa u soo dhawaaday iyada iyo Shan Wen oo ka codsaday in ay aadaan jimicsiga sida ugu dhaqsaha badan si loo baadho. Ogeysiis ayaa lagu dhawaaqay jaamacadda oo dhan, iyada oo laga codsanayo qof walba in ay isugu yimaadaan qolka jimicsiga. Booliiska ayaa isku soo ururinaya dhismaha iyaga oo xidhan weji sun ah, taasoo cabsi gelinaysa ardayda. Intii ay ku sii socdeen qolka jimicsiga ayaa ay la kulmeen Shu Malu oo muujinaysa in ay tahay xirfadle
looguna yeedhay in ay baadho xaaladda caabuqa. Waxa ay matalaysaa shirkadooyin badan oo milyaneeriin ah kuwaas oo soo saara daawooyinka, waxaana ay si dhow ula shaqaysay Professor Hu mashruucii cilmi baadhista ee dib u habaynta hidda-wadaha. Waxa ay ogaatay in tijaabadii Professorku ay ka weecatay anshaxa cilmi baadhista. Waxa uu bilaabay in uu dib u habeeyo hidda-sidaha xoolaha iyo dhirta si uu u abuuro fayraso waxyeello leh. Markii ay ka hor timid, waxa uu ka eriyay shaqadii oo umuusan joojin tijaabadiisii. Xataa waxa uu bilaabay in uu ardaydiisa u isticmaalo maadada imtixaan, taas oo sababtay in uu dilaaco fayrasku. Iyaga oo Shan Wan iyo Shu Malu ay ka hadlayaan tijaabada, Luo Ke waxa ay ogaatay in neerfaheedu ay cagaar isku beddelayaan. Waxa ay ogaatay in ay fayraska qaaday, kadibna way carartay si ay isku qariso. Shan Wan dhowr daqiiqo kadib waxa uu bilaabay in uu raadiyo. Dhanka kale, gabadh hore fayraska u qaaday ayaa ay saraakiishu xakameeyeen si aysan dadka u qaadsiin. Waxaana loo fidiyey gargaar caafimaad, laakiin nasiib xumo fayrasku waa uu dilay. Shan Wan waxa uu aaday qolkiisa, waxaana uu ku arkay Luo Ke. Waxa ay ka codsatay in uu ka fogaado, iyada oo tusaysa gacantii uu fayrasku saameeyey. Shan Wan ayaa arkay wejigeyga oo isku beddelaya cagaar. Luo Ke ayaa markaas furtay qoraalo ay Lily qori jirtay maalin kaste, wayna akhrisay. Qoraalku waxa uu xusayaa nin la odhan jiray H oo geyn jiray aqalkiisa oo lahaa muuqaal iftiin leh. Waxa kale oo ay ka hadlaysaa geed uu hadiyad ahaan u siiyey H. Waxayna moodayaan in uusan H ahayn cid aan ahayn Professor Hu. Isla markaa, rag xidhan dhar qufulan ayaa yimid qolalka jiifka si ay jeermiska uga dilaan dawyada. Waxayna ka codsadeen qof walba oo ku jira guduhu in uu dibadda u soo baxo. Shan Wan iyo Luo Ke waxa ay ka baqayaan in haddii ay ogaadaan in Luo Ke ay qabto cudurka, ay ka dhigi doonaan mawduuca ay ku tijaabinayaan dawada ay soo saari doonaan. Sidaa darteed, waxa ay go'aansadeen in ay isqariyaan ilaa inta raggu ay tegayaan. Si kastaba ha ahaatee, Luo Ke ayaa si lama filaan ah u jabisay koob ay ku jiraan biyo, taasoo sababtay in ay raggii sii joogaan. Nimanku labadoodaba waxa ay geeyeen qolka jiifka si ay u tijaabiyaan. Kadib markii ay ogaadeen in Luo Ke ay qabto cudurka, waxa ay ku suuxiyeen daawooyinka dajiyaha ah, kadib way kaxeeyeen. Intaa kadib, koox saraakiil ah ayaa Shu Malu su'aalo ka weydiiyey fayraska. Waxay u sheegtay in fayrasku saameyn ku yeelan karo maskaxda iyo habdhiska dareenka aadamaha. Si kastaba ha ahaatee, ma ah wax la kala qaadi karo oo waxa keliya oo lagu qaadi karaa in xiriir toos ah lala yeesho cudurka. Saraakiishu waxa ay u malaynayaan in tani ay ka dhigan tahay in kiisaska caabuqa ay la mid yihiin sunta oo aysan jirin wax laga walwalo. Sida ay qabto Shu Malu, hidda-wadaha Luo Ke ayaa si aad u wanaagsan u dhigma si ay u soo saaraan nooc cusub oo doorsoome ah oo laga yaabo in uu aad khatar u yahay, inkastoona la isqaadsiin karin. Nimanku si dhab ah umay qaadan digniinteeda oo waxay go'aansadeen in ay nolosha ku soo celiyaan lockdown. Shan Wan waxa uu la kulmay Shu Malu, waxayna labadooduba go'aansadeen inay aadaan meeshii ay Lily ka hadlaysay. Waxa ay u malaynayaan in meeshu tahay shaybaadhka Professorka, halkaas oo ay ka heli karaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tijaabooyinka uu ku sameeyey ardayda. Ugu dambeyntii, waxay soo gaadheen gurigii oo ay arkeen in dhirtu la wareegtay. Professorku waxa uu fadhiyaa kursi la'aan. Markay labadoodu u soo dhowaadeen, dabin duqsi ah oo genetic ah ayaa dhabarka ka soo baxay oo ku sigtay inuu dilo. Shu Malu geedkii dab ayay ku shiday oo Professorkii way dishay. Dabadeed waxa ay baadhay kombiyuutarka Professorka, waxaana ay ogaatay in fayraska xaaladiisu sii kordhayso 100% ay la mid tahay geneticska qofka.
waxayna dhalin doontaa geed aan weligii dhiman oo ku bixi doona heer aad u sareeya oo dabooli kara magaalooyinka haddii aysan ahayn dalal. bilowga filinka genetics-ka Shang Wen ayaa noqday negative markii laga baaray fayraska, isaga oo sharaxaya sababta uusan u qaadin cudurka. inkastoo barfuseerku si toos ah ugu duray fayraska, Shu Melu waxay isku dayaysaa in ay xogta ka soo saarto kombiyuutarka barfuseerka si ay ugu dirto shirkadda ay u shaqayso. Shang Wen waa uu ka soo horjeestay sababtoo ah dad badan ayaa u dhintay tijaabada darteed, waxaana laga yaabaa in macluumaadka ay khatar geliso nolosha dad badan. Markii uu isku dayay in uu joojiyo, Shu Melu ayaa ku weerartay buufin basbaas ah, laakiin inta aysan cararin, laan ayaa ka soo baxday xayndaabka Venus oo dishay. dhinaca kale, waxaanu aragnaa in Luo Ke genetics-keega oo dhan ay noqdeen 100% oo dhammaantood isku wada bedeleen fayras. sidii uu saadaaliyey barfuseerku, waxa uu bilaabay jidhkeedu in ay ka soo baxaan laamo badan, waxayna ku fideen xaruntii oo dhan. barfuseerkii caafimaadka ee iyada caawinayay ayaa isna halkaa lagu dilay. markii uu Shang Wen ku soo laabtay jaamacadda, waxa uu arkay in qof kasta uu dhintay, laakiin Luo Ke ma uusan arag. gabagabada filinka, waxaanu aragnaa in dhammaan magaalada ay la wareegtay dhir. dhowr bilood kadib, waxaynu aragnaa Shang Wen oo ku soo laabtay jaamacadda isaga oo raadinaya Luo Ke. waxa uu arkay sawir ay sawirtay Luo Ke oo ku yaala gidaarka. dhammaadka filinka, Shang Wen ayaa gadaal eegaya isaga oo dhoolla cadaynaya sababtoo ah waxa uu arkay Luo Ke. haddii aad ka heshay sida aan filinka u soo gudbinay, subscribe saar oo ka mid noqo walaalaha qalbiga. mahadsanid.